فاعتبروا يا أولي الأبصار كعبر قاطع أما قياس قاطع تذكى أركتدا وصاحبك هو إليه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون تصالي البندين يلي أبا إليه سبحانه وتعالى وأنا كفى إيدي سنين إلا يكون عقلي قلمو يعني فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إذن قصدتني وحي كمتهي قصص كا إلهي قرآن كينوغا قورمي سورة دنبا إلهي مركاو بحي سورة النمل سورة قرآن يدا وحلقا يابا قصة هدود كا سورة كجرتا إني كدير تهي قصة قرآن يدا وهي قرآن يدا وهل آيادو كاليبا هل آيو أي إلهي كنت المامي هل كا آيانا لغا قورمي نبي الله سليمان إلهي وحو سيئ بغرطوية وين إلهي بكبرية بغرطوية أن سيئ دبدي اللي إن لا سيئ ربنا واسيئ سبحانه وتعالى بغرطوية دا سواحي هيد بغرطوية عيدا مبضا وضطه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحل سوشيري با إلهي إلهي سليمان عيدا مدي سيبا لو سوشيري كواسو جن لها وإنس لها وشمبر لها وفهم يوزعون لهريو أما ليسوا جوجينيو حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها إلهي وحليه سبحانه وتعالى إلهي وكيم سليمان يعيد مديسي على وادي النمل دوحة الله يراهده دوحة قرآن يده وادي أما دوحة مقعد بويهي دوحة قرآن يده بويمي مفسرين توي شيغان دوحة ساحل كاي كوتالا مشام بي كوتالا مطايف بي كوتالا مهالك بي كوتالا وحبا بدر فايدي كما جيرو مeel kasto ay ku taalaba waa dooxun magaciisa la yiraahdo dooxi quraanyada dooxa quraanyada markuu yimi nabiyullaahi sulaymaan hal kamida quraanyada hadashay oo ilaahay warkeedii soo naqliyay waxay yiraahdaan waxay ku hadashay min afsahi ma yumkin waxa ugu qurux badan ama tacbiirka ugu wanaagsan ee la sheegi karo waayo waa tacbiir kooban oo ay yeedhay oo digtay oo magacawday oo amartay oo nahyiday oo camimtay oo khaas yeeshay oo digtay bay yiraahdaan culimada balaga waxay yiraahdaan xawaali 13 qodob oo aqoontaas iyo ku jirta bay yiraahdaan ayada inta yar ee iyadu tiri ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala qalat namlatu quraanyada mid kamida tiri namla النمل بجماعة وسيدا بقر هي بقرة ومفرد مركه ولبا نكراء نملة تنوين التنكير بصار وأون حبت كم إذا قرآن يدي إلهي ما مقعب المفسرين ثم بقرات تهد مكان بيهد مع عساكر تهد مع حراسين تهد كي دون تهد نغطو إلهي سبحانه وتعالى وتنكيري وأنا لا تلمامي حبت كلية إنا يهد قالت نملة هل قرآن يذا كم إذا با وحي تري يا أيها النمل قرآن يوي ادخلوا مساكنكم ما لها كو حسشان مكان دقان كينا كو حسشان دقا قرآن يذا ويسعد بضانته مرقا ادخلوا بيوتكم ما يورانا ادخلوا مساكنكم من السكن بيكتنا ما يشاهد دكتاني كو حسشان قلا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون مفسرين ربضنا واحد المامان لا ده هل كان ناهية لا يحطمنكم أي لا هاي سبان دقيننا سليمان سيانو يعيد مديسو إدين دمين إدين بربرينين واحد هذا ما يقولن لا يطأنكم أو لا يدوسنكم لكن واحد تري محي لا يحطمنكم وتعبير تلمام يبي لي نوعية أي تهي حيوان كان ير الله يرهدا قرانيدو سكيلتون قلف باي لهدا ير او اكسو سكيلتون باي لهدا كونا aqoontooda xasharaad ka warama qolofteeda yari waa qolof ka samaysan wax sida quraarada kala burbura
marka yuu idinku joogsanaya ama yuu cagta hoostiisa yuu idin burburinin bay leedahay xutaamku yacni waa burburin naarullaahi alxutama waa burburinay yuu idin burburinin sulaymaan iyo ciidankiisu wahum laa yashcuruun walxaal hum laa yashcuruun iyagoo weliba aan idin ogeyn cidlaha ku dhimanina waanay u cudur daartay sulaymaan iyo ciidankiisu inaanay duul xadgudbaya ahayn ee laakiin hadday xaaditadani dhacdo sababtay u dhacaysa ay tahay inaanay waxba ogeyn ilaahayna markaa wuxuu uhi fatabasama daaxikan min qowliha nebi sulaymaan waa muusooday isagoo dhoolla caddaynaya ama isagoo qoslaya qosol aan qahqaha ku jirin ee dhoolla caddays ama muusooda min qowliha warkeedii dabeetana ilaahay buu baryo wuxuu leey waqaala rabbi awzicnaa an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waaliday waan acmala saalixan tardaa waadkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin ilaahay buu baryayaa in alla waafajiyo oo ku ilhaamiyo nicmooyinka tirada badan ee la siiyey inuu shukrigeeda la yimaado qisada tani laba shay oo labaduba khaariqa ah baa ku jira mid dadku inta badan way fahmi karaan oo waxa weeyaan nebi sulaymaan inuu afkartay quraanyada quraanyo wada hadlaysa in ilaahay fahamsiiyey nebi sulaymaan laakiin iyana waxaa cajaba quraanyadana inay garato ciidankani ciidankii sulaymaan inuu yahay magac dhowdaba sulaymaan iyo ciidankiisu waa quraanjo garanaysaa cidda meesha maraysaa inuu nebi sulaymaan yahay ciidanna wato marka may odhanin sanqadha ii baxaysa iyo idin burburinin ama waxaa meesha maraya iyo idin burburinin iyana waa magac dhabaysaa waxay sheegaysaa sulaymaan iyo ciidankiisii sida ilaahay tilmaamayo subxaana wa tacaala qisadan waxay idhaahdaan namladu ama bahasha la yidhaahdo quraanyadu waa makhluuq aada u tamar yar oo yar laakiin wax soo saar badan waxay ka mid tahay makhluuqaadka u nool sifa ijtimaaciya bulsho u nool wadar u nool maamul leh oo kala sarreeya oo qaybo nolosha kala gedisan cidiba ay qayb qabato waa mujtamacyada unhawigaa bay idhahdeen ee dhadigu taliyo iyaga iyo shinnida iyo haweenayba ka taliso maamulka sare haysata ciidamada ugu badanina xuraasiinta ah wax ilaaliya qaybo raashinka soo gura waxaasoo dhamme waa dumar raggu shaqo quru qabtaayo boqoradaasuu rimiyaa waana ka ugu cimri yaroo maalmuu jiraayo uu dhintaa boqoradani sannaday jirtaa 6 sano ilaa 30 sano qaar baa gaadha bay yidhaahdaan kuwan kalena dhowr bilood ilaa sannaday jiraan mujtamaca kan ninkaa u tamar yar meesha jooga quraanjada mujtamaceeda shaqada qura u qabtaana waa inuu talqiix sameeyo mujtamaca kani waa mujtamac wax dhisa oo waddooyin samaysta oo bridge sameeya bay yidhaahdaan yani markay rabto meel biyale inay ka tallowdo bridge bay samaysaa xabad baa meel istaagaysa mid kale dabada sii qabanaysa mid kale sii qabanaysa ilaa iyo dacalka biyaha kale ay isku taxmaan inta kale kuwan bay dul marayaan hadday biyuhu ballaadhan yihiin koox bay sameeyaan waa soo biiraan waxay sameeyaan koox tiro badan oo meesha joogta inta kale way dul maraan marka waxay dhahdaan waddooyinkooda way samaystaan bridgeay samaystaan guryay dhistaan nafaqyo godad bay qodaan hoose ciidamay leeyihiin waa dagaalamaan waxbay dhaqdaan xoololey bay leeyihiin iyo beeraley labadaba oo bahashan yar aad arkaysaa waxay idhaahdaan waxaa jirta xayawaan yaroo kaloo ay dhaqdaan xayawaankaa yar subaxii waa la dareeriyaa waa la kaxeeyaa dhirtay saaraan dhirtuu macaanka ka nuuga markuu dhergo habeenkii baa lasoo caraabiyaa xerada meeshoodaa la keenaa dabeetana sokortaa dib looga miira subaxiina waa la shaqo geeyaa habeenkiina waa la soo hoyaa waa xoolo la maalo sida xoolaha inuu dhaqanoo kale beeraley bay leeyihiin oo ah waa baxaan caleen bay soo guraan waa burburiyaan dheecaan kale ku daraan fitriyaat baa ugu samaysma markaa ama parasites protein bay cunaan iyagu caleenta ma cunaan shinnidu shinni leyna bahashan quraanyadu laakiin proteinka ay cunaan way beerayaan dhirta ay soo gooyeen meesha uu ku beerteen ee dabeetana dheecaanka kale ku dareen ayaa fitriyaat parasite ku dul baxaya parasitekaasi markuu xad gaadhay gurayaan kaasaa cunadoodiiya
kuwii askarta ahaa kuwii dabadda joogay kuwa gudaha jooga waxba waa loo qaybinayaa cunadoodaasay samaysanayaan idan waa mamlaka ama waa boqortooyo dhisan oo maamul iyo mijo iyo askar iyo kuwa wax fiiqa xataa qaar bay leeyihiin nadaafadun ka shaqeeya oo guryahoodan iyo meeshan ay degan yihiin oo qura nadiifiya qaybay leeyihiin ciidamo oo dagaalamo oo wax kara waa idan waa mujtamac dhan oo sidaa u dhisan mujtamacaa dhan ee sidaa u dhisan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga sheegay hal qaso waxaan kale aqoon-yahanadan maanta dunida joogaa baaritaanna ku sameeya hal qisaa ilaahay inooga sheegay halkaa qiso waxay ku saabsiisan tahay qaalat namlatu hal ka mid ah quraanyada xabaddaasi mashkilad bay dareentay markay mashkiladda dareentay may odhan lafahaaga la baxso adigu iska tag meesha lafahaaga kala baxso yaan waxa isku diline iskaga tag bay odhanin ee waxay ka fakartay jamaacadeeda sidii ay nabadgelyadooda iyo wanaaggeeda uga fakari lahayd walidaalik halkay ka baxsan lahayd may baxsanine waxay bilowday inay yeedho oo u yeedho tolkeed yaa ayuha namlu inay tidhaahdo naadat wanabahat bay yidhaahdaan waa dhawaaqday iyadoo weliba ha u tambiih isticmaalaysa oo yacni feejignaan wada gelinaysa maxay leedahay yaa ayuha namlu dkhuluu waa magacawday dabeetana waa amartay quraanyooy gal bay yidhaahdeen xaggay gelayaan way u tilmaamtay sida loo badbaadayo waxay yidhaahdaan mashkilad baa jirta iyo hayaay qura may odhanin ee waxay u sheegtay xalka ugu dhow ee mashkiladdan lagu xallalayaa waxay tahay waxay leedahay shaqooyinka oo dhan joojiya cid waliba ha gasho maxay godkeeda ha wada galaan markaasay weliba waxay ka nahyiday laa yaxtimannakum yacni ha u banbixina si aanu idiin burburinin marka waa nahyi bay leeyihin laadatan iyo laa naafiya maaha bay ku tilmaamaan yaan ha u banbixina oo ha imanina meel laydinku burburiya bay leedahay waa amartoo guryaha gala ha soo bixinoo meel ha ku burburtaan ha tegina bay leedahay yaa burburinaya waa sheegtay sulaymaan oo ay magac dhowday iyo junuuddiisa waxay yidhaahdaan khasat uma cammat haddana waxay kaloo sheegtay cudurdaarkii nebi sulaymaan idan qisadan markaan soo duuduubno waa qiso tilmaamaysa kow qof kasta oo bulshada ka mid ah la rabaa in lagu tambiihiyo in mas-uuliyadi bulshadiisa ka saaranta waxaynu ka faa'iidaynaa wax weeyaan inaanay ahayn madaxdoo qura ama cidda waxgaradka oo qura ama cid kasta oo khatar aragtaa inay calayhi korkiisa saaran tahay inay dadka u digto oo uga digto dhibta jirta ثاني الأمر هداي حل قرنيسو إني حل كرو شيكتو ولي بدتك ثالث الأمر هداي قرنيسو dhibtaasi ma'aalkeedu wuxuu ku gabagaboobayo mushkiladda inay u sharaxdo laa yaxtimannakum yani in laydin burburiyaabo mushkiladdu ku gabagaboobaysaa waxay kaloo tilmaamtay dadka niyaadkooda iyo waxaa inaan laga warramin inta loo cudurdaari karaya in loo cudurdaaro waaba laga yaabaa kuwan ay ka digaysaa inaanay wax xumeeya islahayn laakiin ficilkoodu inuu yahay waxa xumaha keenaya saa daraaddeed bay u cudurdaartay sulaymaan iyo ciidamadiisii iyo dhan waa u cudurdaartay iyadoo haddana sheegaysa mushkiladdu inay xaggooda ka imanayso haddii ay sii socoto mushkiladdu inay xaggooda ka imanayso ayuha alaxiba qisadu markaa waxay tilmaamaysaa qof kastoo muslima waa maxay hamiga uu sidaa ma hamiga naftaadunba ayaa inaad la baxsato ma adiga yaa islaanta iyo afarta ciyaal aad dhashay ubaad ka fakeraysaa mise bulshada iyo siday u liibaani lahayd baad ka fakeraysaa xabaddaa yaree namladaahi waxay ka fakertay mujtamaceeda dhan inay badbaadin karto ee kamay fakerin iyadoo lafaheedoo keliya siday ula baxsan karto maanta mashaakil badan baa dadka muslimiinta ku weegaaran waxaanay ahayd qof kastoo muslimi inuu xal raadin karo laakiin dadku qof waliba nafsii buu iska leeyahay ama mas-uuliyadda cid kaluu saaraya qoliyo unbuu qoloba leedahay kuwaasaa dadka sidaa u galay laakiin halkan waxaa la sheegay iyadoo xabad qudha ah oo mufrad ah oo munakar ah oo digaysa oo khayr tilmaamaysa oo waxaasoo dhan sheegaysa qisadu markaa
وقصة كور رميس هذين سكة لو تلمامنا النصح وقصة سكة هذين تلمامنا كور رميس النذارة نبي الله محمد إليه سبحانه وتعالى وصادري شودتك وجدكو شودتك ودن دقنينتي سو قارسيو بور انتو فولي أيوا صباحا قيلي والنادي وقيلي markii loo yimina wuxuu sheegay mushkiladda ugu weyn ee bini aadamka haysata taytay isagoo leh inni nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid waxaan idinka digayaa cadaab kulul baan idinka digayaa isagoo nebigu ku dhawaaqayo talkii markaa may aqbalin ee waaba ka soo horjeesteen idan ayuha alxibba diintana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay dhammaanteedba inay nasiixatay ambiyadana sifaadka ilaahay siiyey baa waxay tahay nebi nuux muxuu tilmaamay uballigukum risaalaati rabbi wa ansaxu lakum wa aclamu min allahi maa laa taclamuun ilaahay risaalaadkiisaan idin soo gaadhsiinaya wa ansaxu lakum buu leeyay waana idiin naseexaynaya nebiyullaahi huud muxuu lahaa أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وحان دينا هاي مد ناصح ويدين كلمة نصيحة في اللغة وحيد هذا نصحت العسل أو نصحت الثوب لبدا بوالا هذا ملبك مركا أدميرته أدوحي قشنا كسارته شقضا سوى حلا هذا ونصح العسل ملبك يبو ميري وكم ميري وحي قشنها أو نصحت الثوبة مرة هذا مركات هنصته ماله الدلدلية وحنا كبيسات وشدنا والله هذا خياطة ستولتنا كامرة دلتولينا لغاهن والله هذا العلماء دي الصومالية ده هو مركا يرى كان رئيس الصومالي الراديان وحي ورنشرين والله خير ميرا بيد هذا وبالشدة هذا خير ميرته وحلا لي وحي خير وجره خير الدنيا هذا أما خير آخرة هذا قفك مسلم كأنه يهي بالشديسة قف خير ميرية أو سيدي أي يقول لي بان لهيدا الدنيا آخرة وكفكرين يوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي الدين النصيحة دين تبا ونصيحون يعني الدين توا لنعي بدنتهي لكن وحلت المامي يا سيدي الحج عرفة نبي محمد حجكم بوا عرفه حجكم دول بدن ولا مرابو ليه لكن عرفه waxay ka mid tahay kuwa ugu muhiimsan ee arkaanta hadaan lala imanin aanay wax kale asaxaynin laakiin xajku carafa waa ka badan yahay laakiin muhiimadeeda in la tilmaamo waxa nabigu yiri al-hajj arafa xajba waa arafo sidoo kale ayaa xadiidkan imaamu muslim warinaya nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam ad-diinu nasiiha diintu waa nasiiha uu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam dabeetana waxay saxaabadii weydiiyeen قلنا لمن دينت إلهي رسول كيسيو يي نصيحوطه دينت يي نصيحوطه نبي عليه الصلاة والسلام وحط المام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم شان شايب النبي قلت المام عليه الصلاة والسلام صدح نواسي لبا نواسي صدح ظهره إلهي سبحانه وتعالى هي كتاب كيسه يا رسول كيسه إلهي وحبين وقام بهنا لكن الصحة ذلك محل وقدا ليه هي وإن إنه إلهي سبحانه وتعالى الرمينه وإن عندنا وشريك يالين وكتقنا أسماء دي سينا إنه الحادينه وصفات كيسة ونكسن وردن كشيقنه والنقائس يحمى وردن كربنه وطاع الله نمادنه ومعاصي دي سكدرقنه ودرتي وحوش علانه ودرتي وحن عنه يعني وحا صعد من وحي سوهس قليان النصيحة لله إن عبادة خالص يالله وحكا استوينا فري يالله وحي سوهس قليان النصيحة إنه إلهي سبحانه وتعالى لله ولكتابه ولرسوله نواصل لك إنه كتابك الرمينه والراعنه وحينا فريه آخرية أدوم بيساقا لقول لي بانا يا ستة وصور نقنه الرسول كيسونا واسدا سلك وهم waxay la mid yihiin nusuusta kale ilaahay ilaahay in tansuru Allah ilaahayna uu heelisaan oo kale ama rasuulka uu heelisaan ama kitaabka uu heelisaan heelka iyo nasiixada iyo waxaan oo dhamay macna qura
أي وضع tilmaamayaan markay xagga alle iyo xagga rasuulka iyo xagga kitaabka joogto waxa kaloo alla tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay walia'immata almuslimiina wa caamatihim yaa loo naseexaynayaa kale muslimiinta maamulkooda cidda hoggaanka muslimka u haysa in yar ha hoggaaminayo in badan ha hoggaaminayo in kasii badan ha hoggaaminayo hoggaan oo dhan imaamka masaajidka nin baa ina tukiya oo imaam inoo ah waa ina hoggaamiyaa ilaahay xaggiisu inoo hoggaamiyaa rabbu isu keen hortaagayo oo inoo baryaa nasiixu inugu leeyahay oday baa qabiil u hoggaamiya aabbaa reer hoggaamiya gobol baa nin waalikayoo hoggaamiya madaxweynaha waddan hoggaamiya ummadoo dhan buu hoggaamiyaa caalim buu iyo dadku diin u sheegayaa waa hoggaamiyaa hoggaankaasi noocuu doonaba ha ahaaday a'immati almuslimiin iyana naseexay u tahy oo waa maxay waa in khayrka loo sheego wanaaggana lagu adeeco lala taliyo wixii wanaaga loo tilmaamo wixii xumaa laga reebo wixii khayr oo dhan loo miiro iyana weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu yidhi wali caamatihim iyo caamada muslimiinta oo dhan iyagana waa in loo naseexeeyo walidalik ayuha alaxiba qisada tan namladu waxay sheegaysaa hal quraanyo ah oo naseexo siinaysa duulkii ay ka dhalatay oo dhan naseexo ay ku badbaadayaan u tilmaamaysa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay diintuba waa nasiixo waxaanuu nabigu tilmaamay xuquuqda muslimiintu isku leeday inay ka mid tahay yani xadiid imaamu muslim sidaan warinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya xaqu lmuslimi cala almuslimi sittu qofka muslimkii qofka kale muslimkaa lix buu ku leeyahay maxay yihiin baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo hadduu kaa soo horbaxo inaad salaanta buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam hadduu kuu yeedhana inaad ajiibto oo cunno iyo wax la mid a hadduu kuugu yeedho inaad ajiibto waida stansaxaka fansax lahu hadduu ku weydiisto talo iyo nasiixo iyo shuuro hadduu ku weydiiyo iyo talana inaanad lugoynin inaad daacadnimo ula taliso waxay doonto talada ha ku saabsanaato talo caafimaad buu ku weydiiyey talo diimeed buu ku weydiiyey talo baac mushtar buu ku weydiiyey talo nabadeed buu ku waxay doonto taladu ha noqoto ida stansaxak hadduu naseexo kaa dalbo fansax lah hadduu hindhiso oo alxamdu lilah la yidhaahdo adiguna yarxamuka allaadii dheh waidaa marida facudhu hadduu xanuunsadana soo booqo hadduu geeriyoodana janaasadiisa raac buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan wuxuu tilmaamay xuquuq caama oo dadka muslimiinta ah oo dhami isku leeyihin inay jirto xuquuq gaar oo amiiradu leeyihinna inay jirto maa min amiirin yali amra almuslimiin ma jira buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam amiir qof taliyo ah oo arrinun arrimaha muslimiinta ka mida gacanta ku dhigo ka taliya uma laa yajhad lahum wayansax oo aan u dadaalin oo u daalin oo wanaaggooda ka shaqaynin ilaa lam yadkhul macahum aljanna jannada lama gala haddii kale buu nebigu leeyahy ninka buuxuun madax u ah haddaanu intaa uu madaxdaya u dadaalin sidii ay u liibaani lahaayeen aakhiro janno geli maaya baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu ku tilmaamayaa jannada la geli maayo bale nebigu calayhi salaatu wasalaam rag madax ahaa ayuu markuu beeco heshiis la gelayay heshiisku la galay waxaa ka mid ahaa inay dadka muslimiinta u naseexaynayaan waxaa jira saxaabi la yidhaha jaabir ibnu cabdillaah albajali jaabir ibnu cabdillaahi nin yamaniya buu ahaa oo qabiilkiisa oday u ah nin aada u qurux badanna uu ahaa suldaan ama caaqil waxaa tidhaahda tolkii u taliya dabeetana nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo islaamay nebiga wuxuu kula bayctamay nebiga calaa iqaami الsalaati wa itaa'i zakaa salaada inuu oogayo zakadana uu bixinayo waannusxi likulli muslim qof kastoo muslimabana inuu naseexaynayo baycadii nebiga
وحيد النبي عليه الصلاة والسلام وحن كل بيعوده حديث كله صحيحين كيالا على السمع والطاعة إن مقليه وهو كان سميه مركزه وحو إلقينا يبيدو يسوون الراعي فيما استطعت والنصح لكل مسلم وحي أدوته يقف كستو مسلم أبا إن دون نصيحة وأدم به جرير بن عبد الله البجلي إن شغاله وهابو دريا وحول فرس يسويبي سوق نيكي تقول فرس بو سويبي فرس في عم بو كان مركا صدح بغلو درهم بو سوسي وحول نيكا وان لسو هشيي فرس كان صدح بغلو درهم بان كسو هشيني دي وا كان فرس يلعق تسي وحول ما فرس كان بعدين تاكل سو هشيسي ها نيكي بقول هذا وحول ورياه ورنيه waxaan u maleynaya faraskaagu inuu inta ka qiimo badan yahay ee 400 makaasista inuu ka walba 3 buu ogola 4 makaasista buu yiri ha buu yiri hadana faraskii intuu eegay buu yiri waxaan u maleynaya faraskaagu inuu inta ka qiimo badan yahay 5 makaasista ha buu yiri sidoo wada uu celinayay buu faraskii 800 isku gaarsiiyay hada way isagii فرسكي سدح ده بقول الله وكاني أيو سداد بقول جارسي مركز سوح يري سداد ده بقول ما كاس استقاضه نبي كان هشيس كلا قليبو يري قف كستو مسلمة إننا نصيحيه مركز هدان فرسك وحير كاس استوى كعب سنة يا إن النصيحة دي نقوم ويده نبي محمد بن بالله كلا قلي سيدا أوجد أيام كوجون نصيحين يا فرسك كونوا قيمها قال سيو انت سكوتشو الأصل وقفك التجارة تجارة عن تراض ويان وحي الرالي لو كلا ولو كلا يبسكرها مشكلة ما لكن كان وحو يسقوا التاجين ولا يبايع عدي النبي محمد بن هلالنا يا تجارة أصليا نبي يقول نبودي بي دينار مركز وحو يدي نفري يسويبي من سحابي يا سوق يوحي بنتي سعاد وحريف أبوها عروة البارغي مثلا هو يمسوقي وإيبي بي وبابا يعتمي لما نف مصاصيستي لكن دينار كيسي لبو صاصيستي هذا مركو لحظة مرة يبغى أركار حول الدون يكوي به هذا لا قرقر تبي نف مكيبي نف كيبه هذا الدينار سي نبي هو حكوصان نقضي يسوون نف كينا وذا الدينار كينا وذا نبي دينار بودي بودي نافي سوسي سوق مركو لا تجي دينار كي لما ناف مصاصيستي هذا نبي بودي بيو دينار سي يسوق مركو دينار كي يو ناف قاري أبو وضبو كان دبيتنا النبي عليه الصلاة والسلام ودعي الله قعنت هذا كو بركة يو ودعي واحد هذا هدو عيد يبي يلعب بوه ليشري ولقي سوق وحو ليمي ما وحو يمي هذا نعرو هدو عيد يبيو والربح بوك هليشري إذا التجارة وبيع ووحي لغو هشيو إن ليس بخصاء ما هوص ليس عدادية ماها إن غش ليس قصة يلو كان وحي بيني أنا وخيامية ماها لكن هل كان حديثك وحوة المام يا صحابي كان يسيدوا النصيحة دي النبي وكلب الله وأفل لها أيها الأحبة إذن دتك مدحدا وحل أولي يعني دتك مسلمين تان ونجودا كتاليا إنه وحو كفك رأي نقطة دنت عامك دتك عامدا أنا وحل أولي دتك مدحدا إن يطيعان عبتودا أسطوران حنتودا إسكدايان وناقا يوشيغي كرانا يوشيغان هي وناقا هي الطلاقة هي هبونا يوشيغان نبي عليه الصلاة والسلام حليه إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا حديث إمام أحمد ورينيه إلهي سبحانه وتعالى صدح بور اللي دين كيهي صدحنا وايدين نعي صدح بور اللي دين كيهيو يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا إن كلجا عابدان عندنا إذا نقول شريك يالين وأن تعتصموا بحبل الله جميعا إلهي حرقي سنين وذا قبصتان بالنمدينة إلى لسان يعني ككو وإن إلهي عبادتي سو خالص ياله لبا وإن المسلمين توذا شرك إلى لسان
وإلهي حرقيسة أكود جرتان وأدقوا أنا نقنن مسلم ككلا كحينية كلا في القنية صدح وأن تناصحوا من والله الله أمركم إن أنس حيسان عدة إلهي مدح ضيدين كدو وهناك وشيكتان صدحنا والله يدين لنعي قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال صدحنا والله يدين لنعي ليدي وقيل وقال وحال يدي ديسك دافع بينهم بتشيء آخر كذا وحال يدي وضوه أحد الكذابين هم بعد نقطة الله بدأ بين عالميت وحال يريد ما فينا سأدر هذا حموه حتى ما فافين هذا أنا أقول نقول إن كيف فيني حتى هذا حمى شرو إلا استرابا في عن هذه لا ينكر كرنا إلا ينكره ولا ترتره لكن إن لو وريه تتكلم قصة نحفا فيه وأترى هذا موقته هي واحد حي مدا وحبابك قبل كرينا قصة آخره سنة ومتكلم قصة آخره حماها الله فافية دينها ما بنانا قيل وقاشوا ما بنانا سؤال بدنا ما بنانا أما إن الدورسية عادة كذا سؤال شبديسي أما سؤال علمي أنا وحبك هذا فائدة هنا ندرسه تجناته شيخ واحد ويديه سؤال بدل تاجته سؤال شبدنا ما في أنا دانا وح منفعك وجرين كصدحاتنا حولها إن لا ضيعوا الله لميو إيانا ما بنا صدح دابوا الله يدين عيبون نبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام حديث ترمذي ورينا يوحى كم ده نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إلهي وجهي سهل نور يبو نبي عليه الصلاة والسلام عند وركيغا مقشه وليس إلى لسه دبتنا قاد دتك كلا سي غارسيسا وحاب الله أركاه mid soo xambaaray inuu gaarsiiyo mid kale oo isaga uga sii faham badan oo uga sii dhaqan badan aduu warka xadiidkaad maqashay intaad kaga dhaqanto waxba laga yaabo kaad u sheegtaa inuu kaaga dhaqan bato ajarkaad ka heshay inuu kaba bato intaad adigu ku camal fashay wuxuu kaloo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam thalathun la yughallu calayhinna qalbu muslim saddex qof muslimi la yughillu iyo la yaghallu labadaba way xarakeeyaan لا يغل هذات هذا من الإغلال وخيانتي لا يغل هذات هذا فتح كدكتنا واتي حق دقاهي قلب قف مسلمي مخيام يا ممدي دا ما محاسده وامحي إخلاص العمل لله إلهي عمل كإن له كليا له ومناصحة أئمة المسلمين ذاتك مسلمين تيما دحضاء إن لا نصيحيه ولزوم جماعتهم جماعة دودنا إلا لازمه فإن الدعوة تحيط من ورائهم أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام كان مسلمين جودهان وقولنا سيحيني جارهان وقولنا سيحيني دل يرى جار بقولنا سيحي أو أزواج تجار بقولنا سيحي أو عد والبوصيات كيسو آدو تربدن ينوم ضدك مسلمين تردنوا جارسية نصيحته تعيير معها عيبين معها أما عنان معها كبر بان النصيحة وحي وستان قف قوانون النصيحين لكن وضع عنان معها وانون النصيحين وضع عيبين يسا هذا وحي وحصة ميسا كي كبات سميسا عين كبوس سمي واحد سكرد يسا إن النصيحين يسا لكن واحد وضع عيبين يسا نصيحته وقفك مسلم كأه هدي قار لوغو شيء كرين قار لوغو شيء هذا إدنا عامة هاي ودت كوردن كده حيسا ودت كوابا نيجا بن قارين ندت ككلا قارسين كريين هذا الشكل عدي قارسين كرتا سجود وحين ورن كرنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت المام قفك مؤمن كي قفك كلام مؤمن كمرايد بويه هي بنقول المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه نبي وحده عليه الصلاة والسلام مؤمنكم مؤمن ككلا مرايد بويه مرايد ما حيكون غبطها مرايد أنت تصير تاكته أيات سكو أكته دبتنا يضع مصمم كوش أكته عيب هذا هل كان حبة شكاكته هل كان نسكك باكاكيا هل كان سفي عنه ماد مايرين عيب هذا ولا ما يكوش أكته ما عيب هذا قريش أكته ما يقرح هذا أنا واقو تصيده أنت في عنك وطالنا واقو تصيده إذا النبي وحكوت المام مؤمنكم مؤمن ككلام مرايد بويه
macnaheedu waxa weeyaan qofka muslimka aad ku aragtay ceebtiisa si latifan ugu sheeg si uu isaga tirtiri karo dhibina aanay u soo gaari karin markaasuu nebigu wuxuu ku tilmaamay mu'minkaasi mu'minkaa kale inuu muraayadu yahay mu'minku mu'minka waa walaalkii buu nebigu yidhi yakufu canhu daycatah wayaxuutuhu min waraa'i wixii alaabtiisa iyo wixiisana waa u ilaaliyaa wax dhibana ma gaadhsiinaya macnuhu guud ahaan waa intaa idan naseexada lagaa rabaa tacyiib maaha waa inaad si fiican wax ugu sheegto waa inaad qofka fadeexadaynin waa inaanad muraayaddu ceebta markay kuu sheegto ma rikoodh garaysaa mise markaad ka dhaqaaqdana waa muraayaddu waa tirtirmaysa kamaraadka ma rikoodh garaya muraayadda caadiga waxba ma rikoodh garayso soo saa maaha haddaad qofka ceebtiisa xejiso ka war kaas beri buu caynka ayaa caynkaa sameeyo waan la teliyo saa iyo saasaan idhaad leedahay waa ceebtiisii aad recorded ka dhigto aad hayso oo waktigaad u baahato aad ama ku ceebaynayso ama aad ku dhibayso muraayad haddaad tahay waxay ahaan lahayd inaad ceebtaan record garaynin inaad si qabow oo fiican wax ugu sheegto si wax kaaga qaadan karo maaha si canaana walidaalik ayaa ilaahay nebi muuse markii la yidhi la soo taliyo wuxuu soo sheeg fircawn waxaa lagu yidhi faquulaa lahu qawlan layinan lacallahu yatadakkaru aw yakhsha isagoo fircawn oo la ogayay shaydaannimadiisa ayaa haddana ilaahay yidhi si qabow wax ugu sheeg idan ayuha alaxiba waan soo koobaynaa dadku waa sooman yahay waxaan ku koobaynaa waxa weeyaan قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قرآنيدا إلهي وركيدا وينو سو غوريي إنو أنا أفكيدا فهمينين إنو أنا حتى هدينا لشوكت أفكيدا فهمينين با إلهي كتاب كيسا خالد كاينو سو غوريي وحلاني وحلو سو غوريي وحكم دا إني وحشاك تاي وينو كفايدا يسنو waxsheegaasi oo ah iyadoo hal xabad oo kaliya ah ay mas'uuliyadiisa saartay mujtamaceeda dhami siduu u badbaadi lahaa waa hal xabo ayaa mas'uuliyadda qaaday inay bulshadeeda oo dhan siday u badbaadi lahaayeen qaado ثاني الأمر inay u sheegto wixii ay ku baxsan lahaayeen mushkilad qura kamay waramin ee waxay sheegtay xalku wuxuu yahay udkhulu masaakinakum waxay kaloo u sheegtay haddii xalka la qaadan waayo waxa ka ratibmaya inay tahay laa yaxtimannakum sulaymaan wa junuudu waxay kaloo u sheegtay cidda dhibtu ka soo gaadhaysa cid aan iyaga dhib la rabin inay tahay laakiin ficilkooda waxa ka dhalanaya inuu yahay dhibtaasi inay timaado waxaasoo dhami mid waliba waa cashar keligii la sharxi karo keligiina nusuus iyo adilo tiro badan loo soo naqlin karo laakiin waxaan ku talagalnay inaan intay namladu ku koobsatay ilaahayna inoogu koobaynana inaynu ku koobno inaynan kaba badin intaasi waa maxay digniin iyo amar iyo nahyi iyo bulshada wixii khayrku ugu jiro dhan oo loo tilmaamo qofka mu'minkina inuu dareemo naseexadaasi walaalkiisa kale muslimka ah laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi qof kastoo mu'mine iimaan kaamila ma yeelan ilaad walaalkaa waxaad naftaada la jeceshay aanad ilaa aad kala jeclaato iyo man satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira dadka muslimiinta inaad ceebtooda faafin ee inaad si quman waxaad ugu sheegto sala allahuma calaa nabiyina muxamedin waala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin